waxqabadkii xukuumadda cusub ee Muuse Biixi Cabdi waxqabadkeedii u horeeyay hadday tahay magacaabid iyo hadday tahay waxqaybsi wixiiba wuxuu ka dhigay gobolada galbeedka ayuu ka dhigay Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi Cabdi gobolada bariga saddexda gobolada bariga ayaa goboladii laga doortay ugu badan codka ay siiyeen laakiin codka waa ku khasaareen hadday tahay magacaabid hadday tahay waxqaybsi Muuse Biixi Cabdi waxqabadkiisu waa waxqabadkii marka la eego sida uu wax u qaybiyay isagu waxay u tahay si sax laakiin waxa weeye waa waxqabadkii ugu liitay gobolada bari weeye marka la eego sanduuqa horumarinta Somaliland sanduuqa lagu sheegay ma aha sanduuqa horumarinta Somaliland ma aha waa sanduuqa horumarinta galbeedka iyo Hargeysa weeye waa sanduuqa 46 ayuu siiyay boqolkiiba Hargeysa gabilana wuxuu siiyay 9 buu siiyay hadda ogow boorama 5 buu siiyay gabilaba hadda ka horeysa يعني marka waa inta reerkoodu dagu hadda eeg waxa uu yiri sanaag waxa la siiyay 5 laascaanoodna waxa la siiyay 5 gobolkii togdheer waxa siiyay 16 baa la siiyay wax u qalmo maaha berbera 14 baa la siiyay saylac lama soo hadal qaadin saraan hadalkeeda daa ood weynada kuma tirada kuma jirtaba waa waxqabadka si waxay ka mid tahay xukuumadda ina biixi ka mid tahay qaybintaas hadday tahay qaybinta mas'uuliyiintana waa loogeey sidoo uu qaybiyay waa waxqabadka wuxuu tusayaa inuu waxqabadka ay ka mid tahay boqolka casho horeeya waxqabadkiisa ay ka mid tahay inuu tusayaa sanduuqa horumarinta Hargeysa annagu haddaan nahay gobolka togdheer nooma soo wadaan annaga 16 kana ha qaataan ha ku darsadaan ma rabno ha haystaan oo ha ku darsadaan waayo awalba waxa annagu kuma naaqabin waxa weeye uu ku mahadsanyahay sidoo uu qaybinayo laakiin waxa damayn doontaa mar ay ka sii jeesan doonaan saddexda gobolba waa la qoray taariikh xubin qoraysa hamoodin dad intaad ku guurto oo yaani aad taho maanta wax doonayso taho caynkan haddana maanta dambe aad shacabka soo garaacaysa maaha dadku waxbay qoraan taariikhdu waxbay qortaa laakiin waxaanu sheegaynaa inaan waxqabadka uu Muuse Biixi uu sameynaya ay ku kooban tahay gobolada galbeedka Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa iyo hay'adihiisa iyo wax kasta oo loo qabanayo oo ka dhaxeeya Somaliland wuxuu ku koobaa galbeed shiiq xitaa ma soo gaadho laakiin goboladii waxqabadka u baahnaa wax kasta abaar hadday tahay haddii xanuun imika la sheegayo oo jira tahay hadday tahay biyalaan tahay lama soo hadal qaado galbeedka isagaa baahan isagaa wax walba qaybsada isagaa wax walba qaata isagaa wax walba boqolkiiba intaa ka qaata boqolkiiba imika galbeed wuxuu qaatay sanduuqa horumarinta Somaliland 75 buu qaatay saddex gobol waariya qayb waa maxay waxaan Muuse Biixi wasiirkiisa arrimaha gudaha waxaanu sheegaynaa haddana naga gobolka togdheer annagu qaadan mayno intaa 16 kan ugu dar galbeed agaasimayaasha intii hadhay ee aan la magacaabin dee Muuse Biixi reerkooda haysta wuu daaynayaa halkaas ugu daynaya la bedeli maayo madaxweynihii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu dhisay gobolada galbeed xoog saaray waxa imika aanu filaynay Muuse Biixi inuu bari saaro xooga oo uu isagu dhiso oo waxqabadka u badiyo oo xaggan uu soo jeesto laakiin waa ka sii jeestay waa ka sii wada jeestayba inuu soo jeestadayo waa ka sii wada jeestay laakiin Siilaayo xaggaas uu wada jeeday galbeed buu wada jeeday waxqabad dhisme wadooyin wax kasta Siilaayo uu si xaggaas u jeeday laakiin kani waxaanu dooranay oo dadku ay isku wacyi gelin jireen kana inaga wax inoo qabanaya kana bari dhisaya kana gobolada bari wax u qabanaya